السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا لما أصحابتي أنت جانك حرن أنت عصب لما أنت كسؤال هذا مقالكن ما أنت مقالكن نحن قدونا مقال حيصل عدي لهدمه وحكي خلي دونا حرفضو آد مهمة جارهان حلي جن لتروجو حرفضها نحن قدونا أبو لح حرفض أي شيء دونا حرفض بدن أي شيء لكن لحنا عسله هاي يجا ومهم سن إن هذا لبرتنا أما قفك وكده دالنا ومهم عسله هاي كشيء دونا مقالكن هذه وأركت حرفضك كلا وكون لميذا أما كم مهمسن هدي إجران فضلاً يقولوا ذا كومنتسكا وكو جواب دون هذه إلى إنه يصير أنا أركو حرفضات سوى وقتهين وقت والبحرفضة مهمة وقارة إلهي وقت إنه حس لها حرفضهن اللحظة أو مهمسن في ضاو شوعان. حرفدda koobaad aan isleeyahay aad ay muhiim u tahay xilligan la joogo waxa weeye wax loo yaqaano self directed learning ama af carabi wax lagu yiraahdo atacallum الذاتي waxa weeye inuu qofku isagu wax isbari karo xilligan la joogo waxa ogtihiin in waxbarashadii iyadoo free ah ay meel walba taalo haddii ay noqoto YouTube haddii ay noqoto website-yada haddii ay noqoto meel walba waxa laga yaabaa buugaagtii dhinac walba waxbarashadii maanta meel walba ayaa laga heli karaa marka qofku waxa la rabaa in uu barto sidee uu isu bari lahaa nafsadiisa siduu isu bari lahaa xirfadaas inaad leedahay waxay kaa caawinaysaa in aad cilmiyo badan barato adigoon qofna maxaa la inuu ku baro weydiisan ama iskuul ama jaamacad u tegin maanta waxay maraysaa adduunka in la qiimeeyo qofka maxaa taqaana lana weydiinba xataa jaamacadee ka soo baxday sababtoo ah muhiimadda maanta waxa la siinaya in wixii la samaynayo macno badanna ma samaynayso maanta jaamacadee ka soo baxday saas awgeed waxay u soo dhacaysaa qoraal ama hadda ka hor meel ka akhriyay qoraalkaas wuxuu leeyahay studying and learning are two different things inaad wax adiga dhigato iyo inaad adiga wax isbarto waa laba wax oo aad u kala duwan wuxuu ku leeyahay schools reward best students iskuulada waxay abaal mariyaan ardayda fiican halka wuxuu ku leeyahay life rewards best learners noloshuna waxay abaal marisaa dadka wax isbara iyaga isi soo saara skillska suuqu u baahan yahay isbara saas awgeed waxaan isleeyahay xirfadaas ah self directed learning waa xirfad aad u muhiima xirfadda labaad aan isleeyahay maxaa la yiraahdaa aad ay muhiim u tahay xilligan la joogo waxa weeye xirfadda loo yaqaano communication skills waana xirfado badan communication skills waxa laga wadaa inaad dadka kale la xiriiri karto xiriir fiican la samayn karto xiriirkana waxaa ku samayn kartaa qaab hadal ah oo ah inaad fikradahaaga maxaa la yiraahdaa muujin karto sidii la rabana aad u gaarsiin karto dadkana ka dhaadhicin karto waxaa kaloo iyana muhiim ah oo isna communicationka ka mid ah in aad qoraal ahaan waxa aad rabto u fahamsiin karto si qurux badan aad fikradahaaga qoraal ahaan ugu gudbi karto sababtoo maanta dunidii oo dhan waxa ay noqotay qoraal marka qof walba qof ka qoraal fiican yahay kana tacbiir wanaagsan yahay ayuu ka gaarid og yahay dad badanna ka gaari og yahay xirfadda saddexaad aan isleeyahay aad ay muhiim u tahay xilligan la joogo waa xirfadda loo yaqaano problem solving iyo research skills in uu qofka mushkiladihiisa xallin karo si qurux badan u xallin karo isagoo baaritaan inaad leedahay oo aad maanta mushkilad markay ku qabsato si fudud google-ka uga baari karto usoo heli karta xalkeeda una xalli karto waa xirfad maanta aad u muhiima oo mushkilad walba inaad adiga xallin karto xalna u keeni karto sababtoo ah maanta macluumaadkii wax walba si firiya ayaa lagu wada heli karaa marka qof walba inuu waxa uu u baahan yahay maanta kasoo dhex heli karo google-ka iyo dhammaan databaseska caalamka ee aqoontu ay ka buuxdo marka xirfaddan waxaan isleeyahay aad ay ku caawinaysaa haddii aad si fiican u barato xirfadda afaraad ee aan isleeyahay xilligan aad ay muhiim u tahay waa xirfaddan la yiraahdo programming markii hore waxaa laga yaabaa xilligan waqtiya ka horey inuu muhiimad gaara sii lahayn laakiin maanta oo meel walbo noloshaada ka mid ah uu programmadii galeen wax walbana maanta program ay noqonayaan haddii ay noqoto applicationada telefoonka ku jira haddii ay noqoto mashiinada haddii ay noqoto gawaarida wax walba maanta waxay noqdeen wax la yiraahdo programming marka haddii aad awood u leedahay in aad barato computerka si good basiskiisana aad ku fiican tahay programming skills waa wax aad u fiican skill aad u fiican oo maanta aad ku caawin kara
fursadaha caalamkana maanta fursadaha ugu badan fiildiga ay ku jiraan waa programming. marka waxaan isleeyahay xirfadaas waa xirfad iyana aad u muhiim maanta inaad barato. xirfadda shanaad aan isleeyahay aad ay muhiim u tahay waxa weeye waxa loo yaqaano presentational skill ama xirfadaha wax soo gudbinta. in aad waxa aad taqaano macluumaadkaaga iyo hadalkaaga iyo ideaskaaga dhammaan aad dadka ugu soo gudbin karto iyagoo qoraala, iyagoo maxaa la dhahdaa media ah, dhammaan maxaa la dhahdaa isticmaalaya design. waxyaabahaasoo dhan waxay soo hoosgelayaan qaybtan oo ah in waxa aad rabto inaad soo gudbiso aad si qurux badan usoo gudbin karto adigoo isticmaalaya dhammaan waxyaabaha qalabka toolska, hadday noqoto powerpoint, hadday noqoto designinka iyo design toolska, hadday noqoto videoska iyo maxaa la dhahdaa dhammaan qaabka wax loo soo gudbiyo dhan in aad iyana xirfadeeda leedahay aad ay ku caawin kartaa isleeyahay xilligan la joogo. xirfadda lixaad aan isleeyahay aad ay muhiim u tahay xilligan la joogo waxa weeye wax loo yaqaano linguistic skills. linguistic skills marka ku leeyahay waa mahaaraadka luqawiya in uu qofka luqado badan yaqaano maanta waa wax aad u muhiima aadna u caawinaya gaar ahaan luqadaha caalamiga ah sida carabiga iyo englishka. inaad labadaa luqadood kala taqaano maanta waxay kuu furaysaa intaasoo cilmi ay kuu furaysaa sababtoo ah waxaad si fudud u akhrin kartaa buugaagta ku qoran luqadahaas, waxaad si fudud u fahmi kartaa maxaa la dhahdaa videoyada dadkii luqadaha ku hadlay sameeyeen, taasoo kuu furaysa maxaa la dhahdaa bad cilmi ah oo dadkii aan luqada garanayn oo kale inaan maanta heli karin. marka aad ay muhiim u tahay in aad luqadaha caalamiga ahna aad ugu dadaasho midda aad ka baran karto haddii english tahay iyo haddii carabi tahayba iyo haddii luqado kale luqadaha aadka u ballaaran ee aadkana loogu khidmeeyay ah inaad barato waa xirfad maanta aad u muhiim ah. intaas ayaan kusoo gabagabeynaya muuqaalkan. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan haddii aan dib ugu noqdo oon soo khulaasay xirfadaha aan sheegnay. lixda xirfadood waxa weeye ta koobaad waxaan idhi self directed learner inaad noqotid oo ah qof isagu wax isbara. talabaad waxaan ku sheegnay communication skills inaad dadka si fiican ula xiriiri kartid qoraal ahaan iyo hadal ahaanba. ta saddexaad waxaan nidhi waa xirfadda ah in aad problem solving aad dhibaatooyinkii mushkiladaha ku qabsada xallin kartid, baari kartid, research skillsna aad leedahay. ta afraad waxaan nidhi programming oo ah inaad programmingka iyo luqadaha programmingka aad barato. ta shanaad waxaan ku sheegnay presentation skills ah in aad skillska wax soo gudbinta aad barato hadday noqoto dhinaca media iyo hadday noqoto designka iyo waxyaabaha wax lamidka ah. ta lixaad aan kusoo gabagabeynay waxaan nidhi linguistic skills luqadaha iyo maxaa la dhahdaa iyo xirfadaha ku saabsan luqadaha in aad iyana ku dadaasho. waxaan rajeynayaa in skillskaas aad uga faa'iidaysan doontaan kuna dadaali doontaan. inta aan muuqaalka nabada isku arki doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.